dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay inay ka dambeysay Kenya diyaaradii dhawaan siyaasiyiinta ka dejisay magaalada Kismaayo waxayna sheegtay dowladda Soomaaliya inay Kenya ku xadgudubtay hawada Soomaaliya taa bedelkeedana ay dacwad heer caalami ah ka gudbisay waramurta ku saabsan waxay noo haya wariyaheena Xamse Maxamed khilaaf diblomaasiyad ayaa ka soo dhex usboonaaday xukuumadaha Kenya iyo Soomaaliya kadib markii dowladda federaalka Soomaaliya ay dacwad u gudbisay hay'adaha hawada caalamiga ee ICAO iyadoo ay Kenya ku eedeysay inay ku soo xadgudubtay hawada Soomaaliya tilaabadan ayaa imaanaysa kadib markii hay'adaha hawada duulista ee Kenya ay ruqsad siiyeen in diyaaradii sida tooskeeda uga degtay Kismaayo iyadoo uu jiro amar ay dowladda Soomaaliya dul dhigtay in dhammaan diyaaradaha duulimaadyada ka soo baxay Nairobi oo Kismaayo ay soo maraan Muqdisho Kenya ayaa shalay galabnimadii ka xumaatay dacwada ay Soomaaliya ka gudbisay ee ku saabsan in Kenya ay ku xadgudubtay hawada Soomaaliya inkastoo diyaaradani la sheegay inay ku soo xadgudubtay hawada Soomaaliya ayaa laga yaabaa in laga leeyahay wadan kamid ah wadamada bariga Afrika saraakiil kamid ah Kenya ayaa wargeyska Daily Nation u sheegay in Soomaaliya ay mas'uuliyadda ka saaraan hawadeeda iyo ilaalinta dhaqdhaqaaqa diyaaradaha duulimaadyada rayidka ay ka gaabisay sidaas darteed ay eedeen been abuur ah dusha u saareen xukuumadda Kenya xogaha xafiiska arrimaha dibadda Kenya ayaa mar wax laga weydiiyay tilaabada Soomaaliya uu sheegay in dowladda ay maqashay balse ay hubin doonto arrinkaasi iyadoo wadamadan dariska ay isku haystaan dhulbadeed lagu muransan yahay ayaa xiisadahan cusub laga yaabaa inay god dheer ku sii rido rajadii laga qabay in labadan xukuumadood ay dib u soo celiyaan xiriirkii diblomaasiyadeed oo bilihii u dambeeyay ku jiray mugdi xooggan saraakiisha Kenya ayaa ku dooday inay habooneed in Soomaaliya ay ka hortagto diyaarad walba si sharci darro u soo gasho hawadeeda balse aysan ahayn ilbaxnimo in Kenya ay dusha u saarto shaqadeeda Kenya ayaa ku doodaysa in hadafka ugu weyn ee Soomaaliya ay dacwadda u gudbisay hay'adaha duulista hawada caalamiga ee ICAO ay tahay in Kenya ay ka dhigto dal ilaalinaynin sharciga caalamiga duulista iyo hawada ayna sidoo kale muujiso in Kenya ay tahay wadan aan ixtiraamaynin dariskeeda haddii ay Soomaaliya cadeyso kiiskeedan ayaa waxa ciqaab weyn soo wajahi doona Kenya inay lumiso codbixinta golaha ICAO hasi yeeshee weli hay'adaha ICAO ayaa weli wax jawaab ka bixin dacwadda ay Soomaaliya ka gudbisay Kenya diyaaraddan khilaafka horseed aan la ogeyn cidda leedahay ayaa waxay ka soo duushay magaalada Nairobi iyadoo si toos ah uga cagadhigatay garoonka Sayid Cabdulle ee Kismaayo waxaana la sheegay in diyaaraddaasi ay ku howlgasho ruqsadda Juba Airways oo shirkadda duulimaadyada aado gobolada Soomaaliya diyaaradani ayaa waxa saarnaa madaxweynayaashii hore ee maamul goboleedyada Koonfur Galbeed iyo Galmudug oo kala ahaa Cabdikariin Guuleed iyo Shariif Aadan Xasan waxaana wehelinayay xildhibaano ka tirsan baarlamaanka federaalka Soomaaliya si ay uga qayb galaan Caleemasaarka Axmed Madoobe bishii la soo dhaafay ayay ahayd kadib markii xukuumadda Soomaaliya ay ku amartay in dhammaan duulimaadyada sida tooska u taga Kismaayo ay soo maraan Muqdisho iyadoo lagu horjoogsanayo Caleemasaarka Axmed Madoobe doorashadii Jubbaland ka dhacday ee guddiga doorashada Jubbaland ay sheegeen in Axmed Madoobe uu ku guuleystay doorashada ayaa waxa diiday dowladda dhexe ee Soomaaliya inay aqoonsato gabi ahaanba iyadoo ku baaqtay in doorasho xor iyo xalaal la qabto su'aasha ugu weyn ayaa sidee diyaaradani uga guuleystay inay si sharci darro uga xadgudubto hawada Soomaaliya iyadoo dowladda Soomaaliya amar dul dhigtay dhammaan diyaaradaha Kismaayo Xamse Maxamed RTN Nairobi